maxaa imiga muuse bixi hadaladiisa waxa kamid ah waa dhul ballaaran waa dad quwad weyn maxaa quwad iyo badahaaba ilaahi ana abuuray adduunkana kale bad ma siine ad waxa bad u siiris ilaahi ana abuuray bad ma siine Itoobiyaano isku soo dhaweeysan Itoobiya soo dhawaada dal jaara baynu nahay mar walba waxaanu taageersanay madaxweynaha farmaajo waxaanu leenahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود القصود هذا الجنة كنا فضلا هذا وعشتها سبسكرايب صار الجنة هذا هو النور جوكتنا وكم حسن تالي سجوك تانك هذا وحاواي مقال كان ومقال وحاواي عن عادي هن واي مانتا أرنتي وبدأ مصبيحي ويبسدي وعلى السعوداء ومعلومات أنا وعلى السعوداء لكن هذا هو مشغول سنة مقال ما نكسر سمينه لكن لسجوا هذا مقال سمينه وحاواي ما تغلى إيش كان ninka muuse bixi la dhahayo nafla caari waaye ma fahamtay nafla caari waaye wuxuu ku gambanayaa oo dadka isaga sii jeedinayaa badan uu iibiyey badana bad la iibsan kara maaha waxa waaye badda ummadda Soomaaliyeed ayaa iska leh waana hanti ummadda Soomaaliyeed marka saawad ognahay muuse bixi uu ku fashilmay dagaalkii uu lascaanood uu ku qaaday waa looga adkaaday ragna waa looga laayay ragna waa laga qabsaday ma fahamteen marka waxa waaye wuxuu rabaa dadka inuu hadda isaga sii jeediyo oo shacab inuu ku helo oo shacab inuu ku helayo ismoodaa laakiin shacab kuma helayo waxa waaye mataqaana meesha ugu dambayso waaye meesha ku fashilmay oo ku fashilmi doono waaye marka muuse bixi maadaama laga adkaado hubna laga qabsaday ragna laga laayay wuxuu isiri meeshii oo ku guuleysan lahayd meel kale oo ku furan ma jirto waa inaa mataqaana ishakeen shacabka ku sameeysid indhasarcad oo mataqaana Itoobiya aad hub ka soo qaadatid hub ay weydiisatid oo waana la aqoonsaday aad dhahdid asagii Itoobiyaanka Abiy Ahmed ayuu u tagay wuxuu yiri niyo waa ijeeda waa iga taala hubaan u baahanahay Abiy Ahmed markuu wuxuu dhahay waa ku jeedaa saaxiibow inay ka taalo oo laga adkaado ku jeeda hubna u baahan tahay ma fahmino adduunkan nolosha waxa waa si aan ku siistay waay ma fahamta adigana waxa u baahan tahay hub baa u baahan tahay anigana waxaan u baahanahay marka aniga waxaan u baahanahay hadda ii yeelaysid mataqaana waa deal garan karnaa aniga adiga deal waa naga dhaxan karaa ma faham ya waxaan u baahan tahay waa ogahay hub baa u baahan tahay taas waa iga diyaar aniga waxaan u baahanahay waa inaan siisaa maxaa u baahan tahay waa markaas waxaa lagu yiri saaxiib aniga waa ijeedaa 120 milyan ayaan nahay wadankeena waxaan u baahanahay badna ma heesano adigana waa kana mataqaana sheeg waxa wadankan macnaha sheeganaysid oo madaxtinimada aad sheeganaysaa haysataa oo dadkiisana waa yahay intaas oo bad waa haysataa marka waa inaa wax aysiisid niyo bas deal waa yiri ninka hadda aniga ay ogashahay mataqaana ina siinaysid ya hadda ay ogashahay ina siinaysid mataqaana hub waa ku siinaya wax walba hub ku heli karo ninka marka wuxuu rabaa muuse bixi wuxuu rabaa hub inuu soo qaato oo mataqaana uu reelas caanood uu kulaayo ma fahamtay laakiin shacabkii Soomaaliyeed inuu kacay shacabka Soomaaliyeed kama yeelayaan waxaas ya wuu fashilmay marka yaana warni ugu daalinin waxa qosolka iga dhameeyay horta aan isla wada daawano nin oo mataqaana Hargeysa ka soo tagay oo gaajo ugu soo carar darteed Hargeysa oo Muqdisho imaaday Muqdisho shaqo u soo doontay ayaa wuxuu taagan yahay waa ku faraxsanahay Itoobiyaanka badda 120 milyan Itoobiyaan inaan bad siino waan soo dhaweynaya uu taagan yahay soo Muqdisho taagan waay bal ila daawada laakiin maanta baddeedii haddaanu karaynay adduunku ganacsigu ku xidhan yahay 100 milyan oo Itoobiyaan aan baddeeda maanta ka karaysana aad baan ugu faraxsanahay badda seelac 100 sano jirtay 100 sano oo ay badda seelac jirtay wax kama aan dheefin maanta aad baan ugu faraxsan madaxweynahayagii uu baddi kareeyay waan soo dhaweynaynaa waxaan leenahay Itoobiya soo dhawaada dal jaara baynu nahay mar walba waxaanu taageersanay madaxweynaha farmaajo waxaanu leenahay marka dad badan oo Soomaali kula sheeganayo oo haddana Itoobiyaan jiro af Soomaaliga bartay ma fahmino marka dadka Itoobiyaanka waa in la iska soo saaraa waa in la iskala sooco waqtiga la iskala soocaya la joogaa hal iskala sooco hal iskala miiro wixii Soomaalida saxda ahay wadanka ha joogaan wixii kale tana hala tarxiilo laga saaro wadanka marka muuse bixi wuxuu mataqaana ishak faa'iido u arkay in la dhaho waa ku ictiraafay waa ku aqoonsanay Itoobiya ku aqoonsatay in la dhaho ma fahmino marka
Ethiopia oo wax aqoonsanayso Ethiopia UN miya ciida NATO miya maxay tahay sidee wax u aqoonsan kartaa waxay cid aqoonsan karta ma laha ma fahamtay hadday ku aqoonsata xataa ka soo qaad Ethiopia kaligeeda ku aqoonsatay maxay soo saacidinaysaa maxay ku soo saacidinaysaa musabixi halkan wuxuu la taagan yahay waana la aqoonsaday Ethiopia walaalaheena waaye wadanka ugu horeeyna aqoonsaday waaye bal maxay u soo kordhinay waxna waxay u soo kordhin karta ma laha bal ila daawada bal videogan ila daawada oo muus uu leeyahay mataqaana waana la aqoonsaday wadanka ugu horeeyna aqoonsaday waaye walaalaheena waaye uu taagan yahay bal ila daawada maanta oo sanadkii 2024 uu ka yahay waxaan oo nasiib wanaaga inaanu kala saxarayno memorandum of understanding dowladda federaalka Ethiopia saawtihiin ba qof waliba ama madaxweyne kasta wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa ra'iisul wasaaraha Ethiopia federaalka Ethiopia waxa uu naga codsaday inaynu wada galno understanding in ay badda ka helaan meel ay degaan ciidankoodu maadaama ay leeyihiin ciidankii mariinska ahaa meel ay degaan innaga Somalilandna waxaynu in badan Ethiopia iyo qaranka u diisanaynay in laynu aqoonsano qarannimadeena oo muddo badan maqlay waxaynu farxada oo naga mahadnaqayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia sidaanu ku heshiinay ay ku qoran halkan in anaguna aanu ogolaano 20 kilomitir badda iyaguna markaaba ay aqoonsadaan oo qaranka Soomaaliya dawladda horeysay ay noqon doonaan marka la saxaashiska videoga xataa marka daawatid waxa ka dareemaysaa waxa ka muuqato mataqaana ishakeen yani waxa ka dareemaysaa in la soo qasbay amal ka dareemay raali kama ahan waxaan uu mataqaana u sameeyay musbixi raali kama waa la soo qasbay qasab in lagu sameeyo u maleysaa marka dadkaas ummadda mataqaana oo waxay taageereen anaga mataqaana ummadan hormuud u anaga xukunno dad noocaas wadankeena dadka xukumayo marka walaalayaal waa ujeedin wadankan waa la soo dhigtay ma fahamtay dhalinyaradan ayaa wadankan adiga u joogtiin wixii dhalinyaro wadankan adinka iska leh mataqaana adinkan ku hari doono dadkan odayaasha gaboobay waa in laga qabtaa wadanka odayaashii oromada ahaay oo mataqaana ay sheekeen Somaliland imaanay oo dhahay mataqaana badda adinka iskale aniga waan leenahay badiina badeena waa wada leenahay badana haysatiin waxaana haysatiin wax walba leedin waan leenahay dhahay oo laftina gaa dhahay waa aragteen ani markaas waa shakisanaay waxaan taaganahay laftina gaa waxaan aqrinaa dadkan aamin iska dhahay maxay yihiin marka luqad aad fahmayna lagu aqrinaya adna aamin iska leedahay marka waxa waaye waxa laga yaabaa dadkan inay sixir ku aqrinayna laga yaabaa sixir lagu aqriyo ma hadda wuxuu dhax fadhiyaa Muuse mataqaana ay sheekeen Ethiopia dhax fadhiyaa wali laftina gaala la taagan yahay marayaal iyo mataqaana ay sheekeen coosas iyo balaayo qurno dhan la kursaaroya waxa waaye saanu leesadan madluun ka muuqato in madluun yahay ka muuqato mataqaana go'yaal la saaraya oo mataqaana iyo tusbaxyaal iyo balaayo la dul saaraya laftina gaa wali lagu aqrinaya la daba taagan yahay marka meesha sixir aan caadiina ka socdo ilaahay shartooda hana mootiyo ma fahamtay ummadda sixirka aad ugu dheerayso waa Allah mataqaana shartooda Allah hana mootiyo gabar yar oo reer Hargeysa ay qoslisay oo mataqaana ay sheekeen musbixi ka hadlaysay bal ila daawada videogan ila daawada runta u sheegtay maxaa imiga Muuse bixi hadaladiisa waxa kamid waa dhul ballaaran waa dad quwad weyn maxaa quwad iyo badahaaba ilaahi ana abuuray adduunkana kale bad ma siine ad waxa bad u siiris ilaahi ana abuuray bad ma siine Ethiopia waa isku soo dhaweysan ba Allah inuu dhalinyarta wadanka kuna meel taag lafta nagaaba malaana lagu taaganiyo runteed gabadhan waxay leedahay ilaahay bu ummadan bad ma siinine anaga maxaa sida u siin karnaa anaga bad ma siin karno ma siinayna dhaal waa runteed gabadhan aqliga ku jiro aqli dad badan aqli aan haysanin dad mataqaana odayaal aqli aysan haysanin haysataa gabadhan waxay fahamsan tahay ma fahamtay marka dhalinyarada wax way fahamsan yihiin laakiin odayaashan Allah naga qabto shartooda ma fahamtay marka Soomaali badan waxa jirta mataqaana marka Oromo maqlaan waxa ka dhadhacsiisan Oromo inay yihiin dad Soomaaliyeed dad kan kala dad walaalo aan nahay no walaalo ma nihin wax naga galay malahan Oromo anagana mataqaana wax isku meen galin waxa isku nahay malahan ma fahmino marka Oromo waa Xabashi Soomaalina waa Soomaali ma fahamteen Ilaahay subhanahu wa ta'ala qowmiyad kasta wuxuu ku abuuray dhulku ku abuuray
qowmiyadda Chinese-ka ilaahay wuxuu ku abuuray dhul la dhaho China qowmiyadda Hindida ilaahay wuxuu ku abuuray dhul la dhaho Hindiya annaga Soomaali haddaana wuxuu nagu abuuray dhul la dhaho Soomaaliya ma fahamteen marka isku soo dardar Oromo Ethiopian iyo waxa waaye Xabashiya la isku dhahay Xabashi dhulkan oo mataqaanaa diinta Islaamka xataa waxay u taqaanaa al-ardul Xabash u taqaanaa ma fahamteen Oromo iyo Tigray iyo Ethiopian iyo waxaas dhan Xabashiya la isku dhahay dhulkaas Xabashida ayuu ilaahay ku abuuray annaga Soomaaliana dhul Soomaali ilaahay nagu abuuray marka waxaan isku keen galay ma laha Soomaalina waxa waa qabiil u kala baxdaa dadkan Xabashadana qabiiladooda waxa waaye Tigray mataqaanaa Oromo iyo waa qabiilo badan yihiin ma fahamteen annagana Soomaalina laha qabiil annagana aan leenahay gooni ah marka waxaan isku keen galay ma laha marka walaalayaal muuqaalkayga halkaas ku soo koobaya waa aragteen mataqaanaa shakeen madaxda Soomaaliyeedna meesha iyo mataqaanaa ay ka taagan yihiin arrintan waa ka wada hadleen dhamaantooda waana ka wada midaysan yihiin madaxda Soomaaliyeed dhan mataqaanaa mucaarad iyo muxaafidna arrintan oo badda aad bay ugu wada midaysan yihiin marka insha Allah Soomaaliya guul aan u rajeynayaa guul insha Allah guul assalaamu calaykum qarankani baa ma noqon dhulkaygu